daadad aad u xoog badan ayaa gebi ahaan dusha ka maray tuulada Gosol oo ka tirsan degmada Xarfo ee gobolka Mudug. daadadkan ku dhuftay tuulada Gosol waxay gebi ahaan dusha ka mareen dhismayaashii magaalada oo aad u fara badnaa marka laga reebo dhismaha isbitaalka magaalada oo 600 oo mitir qiyaastii magaalada ka baxsanaa. sidoo kale waxay barakiciyeen in ka badan 100 qoys oo deganaa tuulada Gosol ee gobolka Mudug. daadadkan magaalada dusha ka maray ayaa ahayn kuwo ka dhashay roobabkii magaalada ka da'ay, waxayse biyuhu ka yimaadeen deegaano aad u fogfog oo ka tirsan gobolka Nugaal iyo dhulka hawdka ee Puntland. waxay biyahani soo mareen deegaano aad u fara badan oo ka tirsan goboladaasi oo ay ka mid tahay degmada Burtinle. haddaba shirkadda isgaarsiinta ee Golis ayaa deeq raashin ah gaarsiisay dadka daadadku ay barakiciyeen. gargaarkan cunto ee loogu talagalay dadka barakacay ayaa gaarayay 250 mitrik tan oo iskugu jiray bariis, bur, sonkor, saliid iyo bustayaal, sida uu TV-ga Universal u xaqiijiyay Maxamed Ciise Cusmaan oo ah madaxa suuqgeynta shirkadda ee Golis ee gobolka Mudug. waxaa sharaf noo ah maanta shirkadda isgaarsiinta ee Golis Telecom Soomaaliya inay deeq soo gaarsiiso shacabkii dhibaatadu ka soo gaartay daadadkii ku soo fatahay degmada beesha Gosol oo sida maamulka gobolka iyo kan degmada iyo shacabka deegaanka noo sheegeen ilaa 150 qoys dad ku dhow ay meesha deganaayeen, dhammaanna ay biyuhu la tageen sida aanu indhahayaga ku soo aragnay. shacabkaas dhibaato badan baa soo gaartay. waa shacab waa la dareemi karaayo iyagoo hurda biyuhu la tageen oo khasaarada intaa leeg soo gaartay. waxaase wax ilaahay loogu mahadiyaa inaanay khasaaro nafeed halkaasi ka dhicin. Faarax Bootaan oo ah agaasimaha shirkadda isgaarsiinta ee Golis ee gobolka Mudug ayaa isna sheegay in shirkaddu ay mar walba ka go'an tahay inay caawiso dadkeeda dhibaataysan. aanu ula qaybsano waxa way dhibaatada soo gaartay. shalay galabaan halkaan nimi halkaan u hooyanay. runtii waxa way ii sheeg dadku degaankii ay deganaayeen iyo hoyga ay ku jireen waxa way ii sheeg way biyaha ka salkiciyey oo dhulkii dhan waxa way biyaha harqiyey. dul bay saaran yihiin. wax hadda runtii hoy la taaban karo oo ka jiraana lama arko. marka dadka horta waxa way bulshaweynta iyo dadka deegaanka waxaanu maaragtay ii sheeg aanu maaragtay kula taliyana waxa way ii sheeg in bal wixii gurmadu ay sameyn karaan inay sameeyaan. gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Tigey ayaa xusay in talaabadani ay tahay mid loo baahnaa, sidoo kalena ka codsaday ganacsatada iyo hay-adaha ka howlgala gobolka inay gargaar degdeg ah la gaaraan dadkan dhiban. halkan ka soo rogmaday ee deegaanka Gosol iyadoo bini'aadanimada ka sokow iyo gargaarka la isu baahan yahay kadib dadkaanu inta badan waxay ahaayeen macaamiisha ama customerka shirkadda isgaarsiinta Golis adeegeeda isticmaal ayay ahaayeen. waxaan iyadana baaq u soo jeedinaynaa shirkadaha kale ee adeega bixiya, kuwa biyaha bixiya, kuwa korontada bixiya iyo kuwa kale oo isgaarsiintuba inay sidaas oo kale dadkooda ugu soo gurmadaan. haddaynan isku gurman, haddaynan isku naxariisan, haddaynan iscaawin, ilaahay subxaanahu wa tacaala innagana inoo naxariisan mayo, inana caawin mayo. marka waxaynu guushaa ku gaari karnaa inaynu iscaawinno oo isu gargaarno. sida uu TV-ga Universal u xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Xarfo ee gobolka Mudug Cabdullaahi Faarax Bayle, waa markii labaad oo daadad caynkan oo kale ah ay ku soo rogmadaan tuulada Gosol ee gobolka Mudug. waxaana sanadkii tagay ee 2010 sidan oo kale daadad lixaad leh oo magaalada ku soo rogmaday ay burburiyeen ilaa 32 dhisme oo iskugu jiray guryo la deganaa iyo dhismayaal ganacsi. Cabdiladiif Cabdiraxmaan Warsame, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Gaalkacyo.